agaasimaha madaxtooyada ee magaalada Laascaanood Nadiifa Maxamed ayaa hoygii ka degan tahay magaalada Laascaanood ayaa warbaahinta kula hadashay agaasimaha madaxtooyada ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadashay dilalkii sanadii ugu dambeeyay ku soo noqonaya magaalada Laascaanood iyadoo ay fariin adag u dirtay bulshada magaalada Laascaanood kuwa magta laga qaadanay jeelasha ku jira ma isaaqba wasiyaasha sanadii weydiinay dhubaantooda dhigaya maskaxdiina wayna shaqayta kuwa jeelasha ku jira ee dadka laayay ma dhulbaanta mise waa isaaq waa su'aal hadda imka qof baa la qabanaya looran maayo qofka sharciga xaq waxa loo leeyahay in la baaro inagoo reeraba ordayna oranaya reerabel lataan reer inta tan laga xidhay hadaan la soo day waxba rugmanaya aniga marka taa laga yimaado aniga laftirkayga isku hadlaya habeen dhaweyd qisay ku dhacday waxay ahayd bishii afraad habeenada kamid ah wasiirka ciyaaraha iyo makasuul kaalay madaxtooyada ana u soo furay oo ka soo tagay in yar kaliya aan maadeernaayo ka yimid Nairobi baa ila socday gaariga anigoo wata oo laamka saabkan ku soo tagay albaabka laga sifra gacantaana gaariga ku wada gacanta midigtana baastoolada baan ku haystaa dabeedna guriga agsinka say soo taagay waayo sababti qabaadna nashqada hore waa la bedelo guriga horta la soo gelaya maalin ba falka ay keenaa falku dumarka nashqada mid loo gaado tanbay keenaya marka say soo taagay inuu kiira gaariga marka ma arkaynin ina kiira gaariga xaq hore tan bay gurina walaalay ninka luuqa kugu nabaday waa guriga luuqa ka jarkayga luuqa ba ku albaabka yar kale luuqa saa ugu nabane fadhiga waan sheegay saa u baan eegay ka sir wakaas oo fuulku ba saa ku shiday ninka fuulku ba ku shiday soo booda boodidu soo booday baan ku dhiban xabadu ku rida koorkii wuu cararay tii labaadan ku rida wuu cararay wuu istaagay labada gacanta soo tagay war haydirin ninbu imooday markaa naag inuu mooday dhaqaaqi baa ku uri gacantii aan tan baa soo ku hayay gacantii bidixdan ku garaacda qoladii burbadka baa degdegii soo gaadhay ninkii waa la qabtay saldhiga laga yeelgu xidhay 15 casho xidhnaa waxa laga fadhiyo waay laga nasan waay dad dhubaantay haay ninkuna nin dhubaanta abwa maxaa guriga ku yeelay markii la yirina wuxuu yiri booshar agteeda baan haystaa markii dambana wuu kala wax boosharka wax la waayay noqotay wuxuu yiri waxa aakhirka lagu dambeeyay miyibu ka yimiyo nin wax kala garanaya ma nin dhubaanta abwa nin reer Laascaanood waaba ku dhigo magaalada iyo dhubaanta abwa hadaba dhubaanta waxaad ka waantowdaan ka dhimanayana waynaga ka guriyaha loo galayaa waynaga taadi baa inagu noqon waxa weeyaan banaanka inoo saara aynu isku wacyigelin dadka qudbaanta qayb waxbay heleen reera waxa jira laba laayay oo dilku ku xukumayahay oo aan waxba helin kuwa hadda magtoodii la soo qaatay ma isaaqbay kuwa hadda magta laga soo qaatay kuwii ka horeeyay oo koow iyo laba iyo saddex mid walba qudbaanta loo ogyahay dadkuna ogyihiin ee magtooda la soo kala qaatay yaa laga soo qaatay ma isaaqbay aynu soo dhubaantahay waa su'aashan baad weydiinay injooba jira hadaba injooga hadii la ragayna loo dijooba lagu laayay injoogaas baan kugu wiri waa in laga tashado oo laga baaraandego oo la waxeeyo inta shirkiga jiraayid wuxuu daaran yahay marka ugu horeysa sanad guurada 26 Juun ilaahay waxaan ka baryaynaa sanad guurada xilligeeda ilaahay farash qaba barshii barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo taaka bacdi aniga sanad guurada 26 Juun maalin gaar ah ay tahay xasuus qor leh xilligii la dilay waxay ku beegnayd 27kii Juun maanta waa 26kii habeenkii 27aad baa la dilay maantiidan 26kii xafladu dabaal degnay alxamdulillah rabbil alamin qofna saacad samada fawaaniga hadlaya taaka bacdi halka waxaan tacsiid ka dirayaa tiiraanyale shacweynaha gobolka Sool eheladii qaraabadii qoysku ka dhintay xildhibaankii hore maxamed aflaar la uu naxariisto hooyadii qaraabadii ehelkii awlaad gabadhu caruurtu ka tagay samriye meeman Allah ka siiyo inagoo dhanba waad aragtaa maanta iyo maalintii qofkii dareemaya Laascaanood habeenkii marxuumka la dilay dhaxantii iyo cirkii iyo murugadii iyo oohintii qiiradii baa cirku waan ku dhaweeyay waad aragtaa dhaxanta iyo baan ku huri maxay daruurtii cirkii iyo gadaaman waa wax lagu cilmi qaato ilaahay baa maalintagana waxaan uga baryaynaa ilaahay janno firdawsa ka waraabiyo
taa marka ka sii gudbo gobolka Sool waxa dhimanaya waa rageeni waxa dhimanaya waa haldoorkeeni waxa la leenayaa waxa weeyaan waa birmageydadeeni reer laascaan dhaqan bay u leeyihiin waxay ku oran hebel waa la dilaa laba cashay qiiroonayaan baroor walba shacab weynuu gobolku baroor laba cashay qiiroonayaan baroor walba iyada hadana buulkeeda ku hadho hooyadii iyo gurigii iyo caruurtii awlaadiisii iyo gabadhiisa ay ku hadhayso waxaan leeyahay reer laascaanodow midbal reer laascaanod mu furaya marnaya reer laascaan waxaan leeyahay qiirada aan meel jirin iska daaya waxa weeyaan qiiradu waa in kal iyo laab iyo niyadu inaga soo goodaa ka dhimanaya waa rageeni kuwa asayda qaadaya waa inaga kuwa gurigooda ku baaya waa inaga kuwa agoomabaya waa inaga kuwa goblamaya waa inaga baroor iyo durbaan la tuwa micna ma samayso waxaan u sheegayaa intaynu go'aan gaadhno culimadeena ganacsatadeena salaadiinteena siyaasiyiinteena deegaanka Sool gobolka Sool inta joogta inaynu tashanno oo dadkeena dhimanaya maalin walba dil baan ku wada xukumanna kulli daaqatil mawt qofna taacad ilaahay ugu talagalay dhaafi mayso laakiin waxaynu aaminsanahay maskaxda dhaamash bay naga gaadhay khalkhal weyn bay nagu dhacay hadaynu deegaanka gobolka Sool hadda laascaanada dad ka tagtid gambadha hadaad gaadhid banaanka seexanaysa wax lagu ma dilo tukara qadaad tagtid banaanka seexanaysa cid lagu ma dilo hadaad tagtid cantiid iska daa meel kale cantiid kala kawana laascaanad joogta kantaroolka hadaad tagtid wax lagu ma dilo adhacdeeye goori kala bayd laascaanad wixii ka baxsay waxba lagu ma dilo qof walba banaanka seexdaa waxa hadaba is weydiin leh oo aqliga saliimku inuu shaqeeyo loo baahan yahay gobolka Sool waa magaalo dhul baahante waa badweyn gobolka waa gobol la wada leeyahay waa gobol la isku xasaasi cid walba joogto dhul baahante hadaba waxa is weydiin leh inay reer laascaanad dib isugu noqdaan inay banaanka inoo saaraan bal dilkan inagu xukuman ila dhiman ma nool rag iyo dumar baan ku dhiman noolina ka soconayaan waxba lama soco maalintii baan ku ramay soconayeen wadanaay bal inagu aan dib isugu noqono bal bahanta horta bal dib isu wareystaan qodobka labaad maskaxda dhaamash baa laga gaarsiiyay dhaamashka laga gaarsiiyay baa wuxuu yahay qof baa la dilayaa kelmad baa lagu soo dhuxtuuraya isaaq bayna laayay isaaq baana laaya war isaaqayna laaya halkay joogaan ciidamada qaranka sidaa hore joogaan oo buurahaas joogaan baa kuula dashqa kuma leh gobolka waxa jooga boolisku intii taalkooda waa ordayaan oo waa qabanayaan laakiin ninkii jira wuxuu yiri isxaaq badidina waxaaq baan diidan boolisku maxay wax qabtaan booliska waa la dhaliilayaa booliska waxa dhaliil yeeli kartaa oo aad dhaliishada ku xadeyn kartaa la xisaabtami kartaa markaad gurigaaga booliska xog aad siisid hadda aniga gurigayga ilaahay ka soo ana ka masuula awlaad baa ii joogta wixii gurigayga u hoydaa taliyaha qaybta kaba warbixin karo oo ma oga barasaabka gobolka jooga kaba warbixin karo oo ma oga maayarka degmada baa kugu wuri kaba warbixin karo oo ma oga waxa gurigayga ka warbixin kara aniga iyo ilaahay oo xogta gurigayga wixii soo hoyday wixii ka soo baxana ka masuul ka warbixin kara waxa weeyaan horta dhaliisha baa kugu raad iyo jeel lagu baalkeenayo warulbaanta caqabada idin haysata beladana inaga qarsanayna guryaheena inaga ku haysana ama aynu dhalo ama aynu qaraabo lahaan ama belad meel kale ka tibahan noqoto horta dhulbaanta ka dadka laynaya ee guryaheena laynaya waa inaga horta inamadeena reer walba gurigooda dib hay isugu noqdaano dhulbaanta waa run way siri jira laamiga la isdigi jira war waxa inagu soo baxay ee dadka maskaxda dhaamashka gaarsiiyay ee jooga wata war dhulbaanta waynu soo warayna guryaheena aynu ka soo waranno talabaad kuwa magta laga qaadanay jeelasha ku jira ma isaaqba oo su'aasha sanad weydiinay dhubaantooda dhigaya maskaxdiina wayna shaqaysaa kuwa jeelasha ku jira ee dadka laayay ma dhulbaanta mise waa isaaq waa su'aal hadda imka qof baa la qabanaya la oran maayo qofka sharciga xaq waxa loo leeyahay in la baaro inagoo reeraba ordayna oranaya reeraba la taan reer inta taan laga xidhay hadda la soo day waxba rugmanaya
aniga marka taa laga yimaado aniga laftirkayga isku hadlaya habeen dhaweyd qisay ku dhacday waxay ahayd bishii afraad habeenada kamid ah wasiirka ciyaaraha iyo markii kaalay madaxtooyada ana u soo furay oo ka soo tagay in yar kaliya aan maadeernaayo ka yimid Nairobi baa ila socday gaariga aniga wata oo laamka saamkan ku soo tagay albaabka laga sifra gacantaana gaariga ku wada gacanta midigtana baastoolad baan ku haystaa dabeedna guriga agsinka say soo taagay waayo de sababtii qabaadna nashqada hore waa la bedelo guriga hortiisa la isu gelaya maalin ba falka ay keenaa falku dumarka nashqada mid loo gaado tanbay keenaya marka say soo taagay inuu kiiray gaariga marka ma arkaynin ina kiiray gaariga xaq hore inta ma go'no walaalay ninka luuqa kugu nabaday waa guriga luuqa ka jeerkayga luuqa ba ku albaabka yara kale luuqa saa ugu nabane fadhiga waan seegay saa u baan eegay marka si wakaas oo fuulku ba saa ku shiday ninka fuulku marka ku shiday soo bowda boodidu soo booday ba ku dhibaan xabadu ku warkay wuu cararay tii labaadan ku rida wuu cararay wuu istaago labada gacanta soo tagay war haydirin ninbu imooday marka naagi inuu mooday hada qaaqi ba ku uri gacantii aan tan ba soo ku hayay gacantii bidixdan ku garaacda qoladii burbadka ba degdegii soo gaadhay ninkii waa la qabtay saldhiga laga yeelay xidhay 15 casho xidhnaa waxa laga fadhiyo waay ee laga nasan waay dad dhubaantay haay ninkoo nin dhubaanta abu ah maxaa guriga markii la yirina wuxuu yiri booshar agteeda baan haystaa markii dambana wuu kala wax boosharka wax la waayay noqotana wuxuu yiri waxa aakhirka lagu dambeeyay miyibu ka yimiyo nin wax kala garanaya ma nin dhubaanta abu nin reer la saanada baaba ku dhigo magaalada yimo dhubaanta abu hadaba dhubaanta waxad ka waantawdaan ka dhimanayana waynaga ka guriyaha loo galayaa waynaga taadi baa inagu noqon waxa weeyaan banaanka inoo saara aynu isku wacyigelino dadka qudbaanta qayb waxba heleen heera waxa jira laba laayay oo dilku ku xukumayayo aan waxba helin kuwa hadda magtood la soo qaatay ma isaaq baa kuwa hadda magta laga soo qaatay kuwa ka horeeyay oo koow iyo laba iyo saddex mid walba qudbaanta loo yahay dadku noogihiin ee magtood la soo kala qaatay yaa laga soo qaatay ma isaaq baa soo dhubaantahay waa su'aashan baanta weydiinay injooba jira hadaba injooga hadii la rageena loo dijooba lagu laayay injoogaas baan kugu wada waa in laga tashado oo laga baaraandego oo la waxeeyo barasaabka iyo maayarkana mid baa ku boorinaya alxamdulillah rabbil alamin barasaabadii hore iyo maayaradii hore sidii ahaan jiray kama aha shacabkii iyo bulshadii iyo community waa la isdhex galay qoqobnaantii waa laga baxa waxaan laakiin hadaba midii ku boorinaya gudiyada maayarka waliba u sheegaya gudiyada xaafadaha samayseen dadkii nafti ba haysta kaadidii ba haysto dil bay ku wada xukumayeen midaan waxba geysan doorka la dayn maayo nin siyaasi la dayn maayo waayo siyaasadda micna ma sameynaysa aniga hadii la dilo oo kursiga aan ku fadhiyo aan ku xirkaan hayo la dilo jeemidina adeerkaya baa san la aasin isu soo taagayo doonanaya laakiin kursi la doonta ama Soomaaliya kursi lagu fadhiyo micna ma sameysay waxa weeyaan horta dadkiina waa inuu aayahooda mustaqbalkooda ay ku tashanaa mid kale way idin sheegay dadkan waxa ka dhaanasay Soomaaliland horta Soomaaliland calanka ma ahe Soomaaliland calanka ma waa ciidana waa la wada leeyahay wixii wayna fahantaa Soomaaliland calanka ma waa ciidana waa la wada leeyahay daraawiish baynu hayd dadkii u soo halgamay baynu hayd dadkooda lagu laayay baynu hayd dadkii inay ku faanaan xaq u leebaynu nahay Soomaaliland namadiidana daraawiish Soomaaliland iyada ku faanta laakiin dadka siyaasadda qoqoban ee injooa laga dhex raadinayo dhulbahanto bal maskaxdiinu ha shaqeyso cimri saliim ha shaqeeyo oo bal guriyeena inagu dubaynu noqon maxay to hargeysa joogo adeeriya Abdiqaadir Xayran ayatullah waxaan leeyahay adeer gobolka Sool waad u dhalataa habeen ma hooyatid hadda habeen ku hooyatid guriga aabaa ma siixatay u dhalbaad siixataa anagoo lagu dilay oo dhibaato soo marnay baanu habeen iyo maalin aan taaganahay kullu daaqatil mawt xilligiisa ay tahay ku talagalay dhaafimays adeerkay waxaan leeyahay nin qaaliya baa ku dhalay nin siyaasi oo wasiir ahaan jiray baa ku dhalay oo micna iyo karaamo leh adeer waxaan ku leeyahay mucaaradnimada aad tahay iyo nidaamka iyo shuruucda sharciga kala saar
waxaad tidhi habeen dhaweyto markaad hadlaysay daraato waxaad hadalladaadii ka mid ahaayeen maxay to barasaabku nin deegaanka u dhashay maaha barasaabku midhaadeer waxbaa kaa khaldane dadkaada kala aqoon nin deegaanka u dhashay gurihiisa tukaraq bay ka dhisay laascaanood waa ku wareerka kaliya ee Muuse Carre ee dagaaladii ba ku dhuuqooy markii la dagaalamay dhubantii saqsleynayeen aan maalin kale guriyooda ka qaxina ba ku wali sidii geelada xooloodii ilaa iyo abtina way joogaan waxbaa ka khaldan baan systemka mid guriyaaga iyo taariikhda guriyaaga ba war uma hayside waxaan adeer ku sheegay waxa tii habeenkii dhimaantii dhaweyto ciidamada qaranka halka la shuruucda iyo mucaaradka halka saaro wixii ciidamada qaranka in cabaasho ku jiro Xuseen Ducaale ku jiro militariga dhulbahantee amniga lagu wareejiyo waxa weeyaan amniga hadarba ku shaqaleeyeen dhinac baashi habeen iyo maalin kuwa kale degmooyin iyo tuulooyin bay iska joogaan in walba iska raaxaysanaya taliya qaybta toddobaad habeen iyo maalin ma nasto wanaaga dadku heelayahay gobolka waxqabadkiisu heelayahay horumarka dhulbahantee laga shaqeeyo heelayahay imika oo laba dalaaq khayr Allah siiyo wuxuu ku mashquulsan yahay shirkii beesha Siyaad Maxamuud intii hadhay sidoo maalin walba in isugu keeni lahaa ayuu habeen maalig foogaya isagana waxaan ku leenahay hadaan nahay dhalinyarada iyo beesha Siyaad Maxamuud waan ku garab taaganahay habeen iyo maalin waxaan ku leenahay hadaalin diyaar baan ku nahay cadawgaaga Allah jabiyo hore u socon ku leenahay abdiqaadir xayran adeerka waxaan leeyahay amniga gobolka waxa ku shaqeeya gudida nabadgelyada iyo booliska oo xidhnaba iyo laamaha amniga ee loogu talagalay adeer waxa tira siyaasina waan ayatullaahi haddana waxa ciidamada qaranka lagu wareejiyay ciidamada qaranka waxay xaq u leeyihiin marka gobolka Sool ee gudida nabadgelyada laamaha amniga ba ku booliska ku shaqeeya marka la muquuniyo ayay xaq u leeyihiin in ay amniga soo galaan waxba ka khaldane hargeysa intaad ka hadlaysid oo ka shaqeynaysid ka dhimanaya waa garabkaagi ka dhimanaya waa walaalka ka dhimanaya waa abtiga iyo adeerka hargeysa joogna anagoo naaga joogni kaalayo aqli saliima loo baahan yahay ku mucaaradnimada intaad ka daysid gobolka kaalay baan kugu huriyo wax ka qabaadad wax ka qabanaysid laakiin hargeysa inta fadhiisto oo aan iska la bahalkeeyo farda la soo ayay timxal la isaga faanin gobolkaaga ba ku baahan kaalay baan ku leeyahay isagana taas ku leeyahay waxaan ku soo goobayaa misgaantu baa la yiri intay guda kala nuuraysa keedu qurma dhul baahanta dadka gobolada Soomaaliland Hargeysa iyo Burco iyo gobolada aynu majeeranayna dadkii lahaa baa ka shaqaystay hadda guribaad ku raysanaysaa Suuliya saxiib laga qaaday amni aan lagu ma waxna guri warqadna laga qarino taayo gudi xaafadeed baa ilaalisa gudida xaafadaha sida gobolkeena hadii laga sameeyo loo idmaday ayaa ka soo xog xilay guriga inta soo qof dheeraad baa ku soo gagay dadku gurigooda iyaga ilaashade oo naftooda ilaashada gurigooda ilaashade inagu waxaan ku leeyahay dhul bahanta in dib isugu noqon gobolka Sool dhul bahanta in lama qabo wacyiga waa gobolka Sool laascaanood waa badweyn tuulayga wax lagu ma diro meel kale wax lagu ma diro tan weeye tan la isugu soo galay tan la isugu soo galay ninkii ugu xil qabay ku artanaya aan dib isugu noqono Axmed Waytma Bulsha TV laascaanood ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree oo ku sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland